tababarkan oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha dowladda waxyooda xog ururinta ee statistics-ka oo muddo 4 cishaaba ka socday hotel barwaaqo ee magaalada Berbera ayaa saaka wax si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tababarkaasi iyadoo munaasabadii lagu soo xidhay tababarkan ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera iyo mas'uuliyiinta wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil ugu horeyntiiba waxaa munaasabada daafuray isuduwaa wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdulla Ismaaciil Yaasiin waxaana uu ka warbixiyay tababarkan iyo casharadii ay muddada 4 cisho ay ku qaadanayeen shaqaaluhu isagoona xusay inuu tababarkani ahayn kii ugu dambeeyay ay wasaaradda qorsheyntu u qabato shaqaalaha dawladda balse ay tababaro badan ay u qaban doonaan shaqaalaha dawladda waxyooda statistics-ka marka waxaan idinka rajaynaynaa in idinkuna ku apply gareysaan cilmigii soo barateen wasaaradihiina waxa kale idin sheegnaa in tababarkani aanu noqon doonin tababarkii u dambeeyay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in tababaro kale oo ka muhiimsan oo aqoonta ay ka badan tahay waqtigan uu ka badan yahay in aynu qaban doono insha Allah taala mid kamid ah ka qayb qaatayaashii tababarka oo ku hadlayay afka shaqaalihii ka qayb qaadanayay tababarka oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka waramay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay shaqaalaha dawladda waxaana uu ballan qaaday inay aqoonta ay halkani ka bartaan ay wax ugu qaban doonaan xafiisyadii ay ka kala yimaadeen gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo isagu ugu dambeyntii soo xidhay munaasabada isagoona ka qayb qaatayaashii tababarka u soo jeediyay inay aqoonta ay halkani ka bartaan ay wax ugu qabtaan kuna horumariyaan wasaaradii ay ka kala yimaadeen statistics waxay tahay waayo wasaaradda aan statistics lahayn amba gobolka haato amba dhaxba haatee waxa weeyaan waxba kama jiraan marka waxa weeyaan waxaan ilaahay Allah isku anfaco dadaal idinkuna uga faa'iideeyo shaqadana ku apply gareeya si tamriinaad farbadan ay ku noqoto assalaamu calaykum gabagabadiina waxaa munaasabadaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 20kii xubnood ee ka qayb qaadanayay tababarkani Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.